السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسك الحج، أعمال الحج رقم 4. waxaan filayaa inaan soo gaadhnay acmaashii xajka iyo lambarkii afraad haddii alla idmo. qaybtan waxaan uga hadlaynaa fadliga ayaamu tashriiq, maalmaha 11, 12 iyo 13 xajka, saddexdaa maalmood ee meesha Mina la degan yahay iyo fadliga ay leeyihiin iyo waxa la sameynaya insha Allah taala. Horta ayaamahaas rasuulku wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiis saxiix muslim ku sugan, ayaamu Mina wa ayaamu aklin wa shurbin wa dhikrullahi azza wa jal. waa maalmo ayaamaha Mina la joogayay, waa maalmo wax la cuno oo wax la cabo oo ilaahayna la xuso subhanahu wa ta'ala. hadii qofku wax kalaba ma haya saddexdaa shay haddaad xusuusataan dadka xajka taga, saddexdaa arrimood baa maalintaas saddex teendhaad ku jirtaa, meel lama aadaysid, galabtii baad buuraha soo tuuranaysaa, inta kale oo dhan halkaa teendhaad ku jirtaa. marka waxa meesha yaalay waa cunto iyo cabitaan iyo dhikri ilaahay. marka wixii kalena laguma ogolo inaad maarta ku baashaashay, waa inaad dhikriga ilaahay aad ku jirto subhanahu wa ta'ala. culimadu waxaa kaloo ku fasireen maalmaha iyaga ilaahay markuu yidhi wadhkurullaha fi ayaamin macduudaat, ilaahay xusa maalmo tirsan. wuxuu yidhi ibnu cabaas iyo keyrkii waa maalmaha tirsan waa saddexda maalmood ee ka dambeeya maalinta naxriga oo 10 ah. dhikriga ilaahay ee marka la sheegay oo la yidhi xusa baa qaybo badan. waxaa ka mid ah dhikriga ilaahay salaadaha gadaashooda in la xuso. waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu oo xusidaasi ay tahay midka muqayyadka la yidhaahdo oo takbiirtii in la qaado oo carafada maalinta carafa ka bilaabma ilaa iyo saddexda maalmood ee 5 maalmood, maalinta 9aad, 10aad, 11aad, 12aad, 13aad salaadaha marka laga baxo adiga arkay la aqriyo adkaartii takbiirtii ciida la aqriyo. waa midka labaad waa in Allah la xuso subhanahu wa ta'ala marka xoolaha la gowracayana Allah la xusaa subhanahu wa ta'ala. udhiyaduna ilaa maalinta 13aad aakhirka casarkeeda inta waa la qali karaa. waa marka saddexaad Allah waa in la xuso marka cuntada la cuno oo la bilaab iyo marka laga baxo. marka horena bisinka ilaahay lagu xuso, marka dambena xamdiga ilaahay lala yimaado. waa marka afraad manaasigta marka la gudanayo oo acmaasha xajka lagu dhex jiro oo dhan dhikri bay u baahan tahay. mashaacirta, tawaafkii, sacyigii, buurihii la tuuranay, intaba dhikriga ilaahay baa afka lagu haynaya. awqaad marka iska mutlaqa baa jiro oo salaadaha iyagu ku qaydnayno iyagu la iska wadaya dhikriga ilaahay. Umar bin al-Khattab waxaa la yidhahdaa markuu joogo Mina wuu takbiirtaas wadi jiray, markaasay dadkuna la kibaaran jireen. fatartaju Mina bitakbiir kullaha, marka meesha la degan yahay oo dhan baa takbiir wada noqon jirtay. ayib marka sidaa fa idaa qadaytum manaasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aaba'akum aw shadda dhikraa. haddii manaasigtiinni iyo camalkiinni aad gudataan oo shaqadii aad samaysaan, ilaahayna xusa subxaanahu wa ta'ala. ayib dadka salafka waxay aad u jeclaysan jireen ducadan soo socota oo aayad qur'aanana ducana oo lagu ducaysto in aad qofku inta xajka joogo uu afkiisa u baro rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina cadaaban naar. waxay culimadu ducadani sababta u noqotay siyaabahaas muhiimka ah waxay jamcisay khayray dunya wal aakhirah, adduun iyo aakhiraba labadoodiiba way jamiso way keentay. Xasan al-Basri ayaa wuxuu oran jiray al hasanatu fid dunya, xasanadan aayaddu sheegtay adduunka lagu sheegayo waa al-ilmu wal-cibaadatu, waa cilmi iyo cibaado weeyaan. wal-xasanatu fil aakhirati al-jannatu way. marka aakhirana waa janno, adduunna waa cilmi iyo cibaado. maxaa ka fiican ilaahay xamdigi. ayib marka buuraha la gamanayo iyagana waxaa la rabaa marka wax tuuriba inuu maartay la timaado Allahu akbar aad dhikriga ilaahay way subhanahu wa ta'ala. walidaalika bay culimadu yiraahdeen dadka mu'miniinta ee xajka jooga ee isu wada imaanaya ilaahay laba shay buu siiyay, badankoodii iyo jirkoodiina ilaahay baa jamciyey. ayib Allah wuxuu ku jamciyey cuntadii iyo cabitaankii meel baa la wada fadhiyaa. quluubtoodiina ilaahay baa ku jamciyey dhikrigii iyo shukriga. waa kan la isla qaadi labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'ma la sharika lak. يعني adkaartii baa la isla aqrinayaa oo dadka isla wadaan. marka intaas oo dhan maalmahaasina waa maalmo wada ciid ah, laga bilaabo 9aadka, 10ka, 11ka, 12ka, 13ka waa ayaamu ciid. rasuulka yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ah yawm arafa maalinta 9aad, wa yawm an-nahri maalinta 10aad,
وأيام التشريق صدح ذا كذا بيسا وعيدنا أهل الإسلام وعيد يدي هدانا يدادك المسلمين تا وهي أيام أكل وشرب وأنا مال ما وحلو عنو أو وحلا عبوية حديث كلا رسولك وحكوت المامي صلى الله عليه وسلم ولا أيام منن وصدح مع الموت قفكي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني قفكي مالين تصدح يطمع إسكب حنا وح إثم يدوشيسا ما أهانن مالمها إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أقوين ومالين الطبنات إيا مالين كوبي الطبنات أيا مارت أوين مالين الطبنات بأوين إلهي أكتيس سبحانه وتعالى حديث بو رسولك وحكوية صحيحة إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر يعني ومالين النحر والطبنات إيا مالين قر يوم القر يوم القر علماء وحيكوفة السيرين وأيام التشريق مالين تأوه الرئيس عكرمة باوحو ليه هي sababta xitaa loogu magacaabeyna dadka ayaa yastaqiruuna fiihi bimina walaa yanfur yani dadku halkaasay joogayaan oo ka tegi mahayaan cikrima ayaa wuxuu leeyahay adkaarta ugu fiican maalmaha xitaa mina la joogo waxaa kamid ah rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fil aakhirati xasanatan wa qina cadaab annaar sufyaan ayaa wuxuu ku fasirayaa alxasanatu adduunyada waa cilmi iyo risqi buuri iyo tayib oo wanaagsan aakhirana janno abaa muusa al-ashcari ayaa wuxuu leeyahay maalmahan mina la joogo ducada lama radiyo waa la aqbalaa bimacnaa kor ilaahay ugu qaada raqbadiina iyo waxaad jeceshihiin ilaahay subxaanahu watacaala weydiista adkaarta iyo waxyaabaha lagu khatimo wax walba camal oo la qabtayna inta badan waxaa lagu khatimaa dikriga iyo istighfaarta ayaa lagu khatimaa sababtoo ah ma garan kartid inaad wixii sidii saxdayd u samaysa iyo إن كلمة قرن ولذلك بالري ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله مركز حتى طواف كسوق جدتان إلهي استغفار يدم بالداف ويديسته مركز صلاة الله لقبحه إلهي يدم بالداف بالوي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بالي هذا كفارة المجد مركز مال أطفال إذا أتكك عيسو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالي هذا مسخوش مركز لقى صوبحي وفرانك بالي هذا مركز فوائد دم بالداف إن إلهي ويديسته وحي آت سميسي سيدي صح ضاهيد إن أصميسي إن كلمة أوي سيدا استرتين وحي خلال أو كجرا الله سبحانه وتعالى أنبرنا إلهي سبحانه وتعالى دنبينا يكي والد كان باينا حين رافو ربنا سبحانه وتعالى عماشينا مد إلهي رالي جلس الله كردقو إلهينا سبحانه وتعالى حج كان مقبولها كردقو مرضينا متقبلها كردقو ذاتك المسلمين تعوض فضيو انت أن ولدتك إن الله صوف فضيو جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.